Asalaamu calaykum soo dhawaada maantayto waxaan ka hadlaynaa mowduuc kaloo xiiso badan mowduucaas oo ku saabsan conversation about family wada sheekaysi ku saabsan qoys wada sheekaysiganu sida tan ayuu ku bilaabmayaa how many people are there in your family imise qof ayuu ka kooban yahay qoyskiinu there are 5 people waxaa jira 5 qof in my family qoyskeena Number 1 my father abahay mother hooyo brother walaale sister abayo and me iyo aniga Do you live in a house or an apartment ma waxaad ku nooshihiin guri ama guri qol ah miyaa ku nooshihiin or ama samahan an apartment villa We live waxaan ku noolnahay in a house guri in the countryside magaalada banaankeeda What does your father do abaha muxuu uu sameeyaa My father abahay is a doctor waa dhakhtar He works wuxuu ka shaqeeyaa at the local hospital isbitaalka gudaha localka meeshay ku nool yihiin isbitaal ku yaala waaye How old is your mother hooyada waa imise jir She is 38 years old waa 38 jir and she is 1 year younger than my father and she is ayaduna 1 year younger waxay ka yartahay 1 sano than my father abahay Do you have any siblings ma leedahay wax walaala What is his or her name waa maxay magaceeda ama magaciisa haddii ay gabar tahayna magaceed haddii uu wiil yahayna magaciisa Yes I do waan leeyahay I have waxaan leeyahay 1 elder brother hal wiil oo iga weyn David ayaa la dhahaa anda iyo 1 younger sister gabar iga yar oo la dhaho ayadana Mary What do you mother and father like to do maxay ayay hooyada iyo aabaha jecel yihiin inay sameeyaan What do you mother maxay hooyada and father iyo aabaha like ay jecel yihiin to do inay sameeyaan My father aabahay likes wuxuu jecel yahay playing inuu dheelo football kubadda cagta and mother hooyana likes waxay jeceshahay cooking inay cuntada kariso Do you parents waalidiinta miyay let you ku ogolaadaan stay inaad joogtid out banaanka late xilli dambe inaad banaanka joogtid ma ku ogolaadaan Of course dabcan no maya They always ask me markasta waxay weydiiyaan to go inaan aado home guriga before 10 pm every day maalin kasta waxay weydiiyaan guriga inaan aado 10 pm ka hor Do you stay with your parents ma waxaad la joogtaa waalidiinta Do you stay adigu ma waxaad la joogtaa with your parents waalidiinta Right now hadda no maya hadda lama joogi but I used to laakiin waan la joogi jiray macnaheedu wuxuu ku jawaabay hadda lama joogi laakiin waan la joogi jiray Do you usually have dinner together badanaa miyaad have dinner together cunto wada cuni jirteen macnaha habeenkii cashada markay timaado miiska cashada intaad fariisataan ma wada cuni jirteen Yes we do waan sameyn jirna My mother hooyadii always prepare markasta waxay diyaarin jirtay delicious meal cunto aad u macaan for us anaka